الله الرحمن الرحيم. soo dhawaada mudanayaal iyo marweyn madashan Somali Public Agenda ay soo qaban qaadisay intaan u guda galin furitaanka madasha waxaan jeclahay ayada quraanka inaan ku furto bismillaahir rahmaanir rahiim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad sadaqallahu alazim. soo dhawaada mar kale madashan waxaan ugu talagalnay inaan ku soo bandhigno warbixin cilmi baaris ah oo ka hadlaysa sida loo ballaarin karo ka qaybgalka dadweynaha ee geedi socodka siyaasadda Soomaaliya. warbixintaas oo ay daabacday Somali Public Agenda isniintii la soo dhaafay. warbixinta waxaa iska kaashaday Somali Public Agenda iyo Somali Dialogue Platform. madasheena maanta waxaan kusoo bandhigaynaa warbixintaas. waxaa jira team panelista oo halkaan noo fadhiyo oo aadan jeclahay marka hore inaan idin baro kadibna ay madashu noo bilaabato. panelistayaasha haddii aan ku bilaabo dhinaca geeska waxaa ugu horeeya marwa xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimo yari gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug. waxaa ku xiga mahad waasuge agaasimaha Somali Public Agenda. waxaa ku xiga marwa duniya maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka. waxaa ku sii xiga mudane cali xaaji warsame oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowlad goboleedka galmudug dowlad goboleedka puntland. waxaa ku xiga gudoomiyaha guddiga dib u eegista gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka mudane burhaan aadan cumar. marka ugu horeysa waxaan jecelnahay madashan inaan ku bilaabano gudoomiye mahad waasuge oo noo soo kooba nuxurka warbixinta kadibna waxaan siin doonaa panelistayaasha ayakuna inay comment ka bixiyaan wixii uga baxay warbixinta. soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan si kooban u sheegi doonaa nuxurka cilmi baaris ka kaashanay Somali Dialogue Platform oo ka tirsan Rift Valley Institute oo ku saabsan sida loo ballaarin karo ka qaybgalka dadka arrimaha siyaasadda. dowladnimadii markay naga burburtay waxaa ognahay in isku imaatin bulsho elite oo isku yimid inay waxyaabaha dowladnimadeena dib u dhiskeeda ay asaas u ahaayeen. tusaale ahaan shirar iyo waxyaabo la qabtay ayaa waxaa ka dhashay in hanaanka awood qaybsiga 4.5 uu kasoo ku dhasho nidaam federaal uu Soomaaliya ku qaato dastuur ku meel gaar ah la sameeyo lana ansixiyo si ku meel gaar ah. doorashooyinkii kala duwanaa ee dalkana dad kooban oo markaas dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada hoggaan u ahaa ayaa ka heshiinaya qaabka loo maareynayo geedigaas doorasho. waxyaabahaas oo dhan markaa fiirisid dadka qaybgalka bulshada hababkaas kala duwan aad u yaraa dad kooban ayaa go'aanadaas qaadaya. marka daraasaddan waxaan ku qiimeynay sida caqabadaha ku gadaaman in dadka Soomaalida ah ay cod ku yeeshaan go'aanada naftooda saameynaya. iyo sidoo kale inaan eegno siyaabaha loo ballaarin karo maaragtay ka qaybgalka bulshada. daraasadda waxaan soo bilaabnay sanadkii hore waxaanan waraysiyo iyo maaragtay doodo koox maaragtay focus group discussions aan ka sameynay dowlad goboleedyada oo dhan Puntland Jubbaland Galmudug Southwest Hirshabeelle Muqdisho dad kala duwan oo maaragtay qaybaha kala duwan ee bulshadana waa ku wareysanay. daraasadda qaybta ugu horeysa waxaan si gaar ah ugu fiirinay taariikhda ka qaybgalka hanaanka siyaasadeed ee dalka. 91 ilaa iyo 2000
iyo sagaalkii marka la fiiriyo 91 ilaa 90kii waxaa socday dib u heshiisiin shirar dib u heshiisiin oo dhowr ah ayaa Soomaaliya loo qabtay Ethiopia Kenya ilaa Masar ilaa Djibouti Soomaaliya loo qabtay shirarkaas intooda badan waxaa ka qayb galayay hogaamiye kooxeedyadii markaas qaybo ka mid ah wadanka maamulayay midkii Djibouti oo bulshada rayidka ay qayb weyn ku lahayd ayaa dowladnimadii ugu horeysay burburkii kadib horta ay noogu soo laabatay sidoo kale 2000 ilaa 2004 shirarkii ka socday Kenya waxaa naga soo dhaxbaxday nidaam federaal in Soomaaliya uu qaato dowladii federaalka ku meel gaarka ayaa ka dhalatay inkastoo dadaalka dib dhismaha dastuur uu soo bilowday 2006 haddana geediga dastuur samaynta marka la fiiriyo waxaa ay ku koobneed guddiyo markaas ka shaqaynayay ka qaybgalka dadka iyo sida ay qayb uga noqon karaan aad u koobneed waxaa ognahay in yani xitaa shirarkii lagu qabtay Garowe 1 iyo 2 iyo Gaalkacyo oo naqshada dastuurka qaybo badan oo kamid ah looga heshiiyey saxiixayaashii transition iyo xubno aad u yar oo bulshada rayidka ka socday ayaa qayb ka ahaa soo dadka cod badan kuma lahayn aragti badan kuma lahayn markii dambana 825 oday oo beelaha ku salaysan ayaa gacantaag ugu codeeyay maaragtay dastuurka isku meel gaar ah August 2012 marka la fiiriyo dastuur samayntiina sidaas ayay ahayd oo elite led process ayuu ahaa doorashooyinka marka la fiiriyo lamid ay ahaayeen 2012kii saxiixayaashii 6 ahaa transitionka iyo Kampala Accord ayaa maareeyay 2016kii National Leaders Forum ayaa la baxeen madaxdii markaas talada haysay dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyagaa noo naqshadeeyay doorashadii dadbaneyd 2021 waxaa sidoo kale doorashadii noo naqshadeeyay National Consultative Council oo markaas ay ku midaysan yihiin golayaasha fulinta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada marka la fiiriyo arrimihii dastuurka arrimihii doorashooyinka still ayagana waxay ahaayeen elite led process oo codka shacabka iyo ka qaybgalkooda aad u yaraa waxaa sidoo kale fiirnay dhismaha dowlad goboleedyada dowlad goboleedka ugu macna ka qaybgal bulsho ugu baaxad weyn wuxuu noqday Puntland maybe asaaskaas iyo ka qaybgalkaasana suuragal ah inuu foundation adag u dhisay inay Puntland si fiican u shaqeyso shirar waaweyn oo la qabtay ayaa lagu yagleelay Puntland 98 waxaa ku soo xigtay Jubbaland oo 2013kii dhowr madaxweyne oo markaas iska magacaawday Kismaayo mid ka mid ah dowladda federaalka ay kula soo heshiisay Addis Ababa ay si ku meel gaar ah u aqoonsatay Southwest sidoo kale elite ayaa waxay kala wateen 6 gobol iyo 3 gobol tii 3 gobol ee dowladda federaalka ansixisay inay tahay mid saxda ah sidaas ay ku dhalatay Southwest dowlad goboleedyada waxaa la dhihi karaa Galmudug ayaaba ka qaybgalkeeda uu ka yara fiicnaa kuwa kale sababtoo ah shirar dib u heshiisiin ayaa jiray oo lagu qabtay Dhuusamareeb ilaa Cadaadana dowlad dhiskii ayaa ku soo gabagaboobay oo maaragtay dib u heshiisiinta markay soo gabagabowday ayaa waxaa la dhisay beelihii ayaa waxay ku heshiiyeen xildhibaanada kadibna speaker la doortay kadibna madaxweynaha la doortay sidaas ay ku dhalatay Galmudug Hirshabeelle ugu dambeysay 2016kii si ka gaarsiis ah loo dhisay doorashadii dadbaneed oo markaas taagneed oo ay khasab ahayd in 8 senator Hirshabeelle markaas inay soo doortaan
baarlamaanka hirshabeelle inay maadaama nooca naqshada heshiis doorashada lagu heshiiyey uu sidaas ahaa soo dowlad goboleedyadiina dhismahoodii processkaasay mareen intooda badan yani ka qaybgalka shacabka aada u yaraa marka dadka waxaan weydiinay maxaa caqabada oo idinka haysto inaad ka qayb gashaan processyadan socdo dhowr sababay noo sheegeen marka kow waxay dhaheen hanaanka siyaasadeed ee soomaaliya waa mid kor ka imaanayo wax hoos ka bilaabanayo ma lahan so maadaama uu kor ka imaanayo yani ka qaybgalkeena already waa xadidan yahay laba waxay dhaheen amnigeena nafteena u baqnaa dadka qaar haddii ay active ka noqdaan siyaasadda protectionkooda iyo deegaanada ay ku nool yihiin iyo duruufaha amni ay la nool yihiin ayay sheegeen inay ay maaragtay ku adag tahay inay si fircoona oo active ah uga qayb qaataan howlaha socdo saddex dadka waxay noo sheegeen 4.5 inuu yahay caqabad already xadidaysa ka qaybgalkii maadaama popular vote dadka aan lagu dooranaynin in maaragtay already qabiil kasta iyo qofkiisa maaragtay iyo oday dhaqankiisii loo laabanayo maaragtay afar waxay noo sheegeen dadka in aanay jirin doorasho oo dadka ay ka qayb galayaan maadaama aan doorasho jirin ka qaybgalkoodiina inuu saas ku xadidan yahay waxay sidoo kale noo sheegeen in spaceka siyaasadeed uu yahay mid u xiran qofka lacag leh iyo qofka maaragtay eliidka ah political eliidka iyo qofka lacagta leh inuu xiran yahay oo mechanismkii iyo fursadihii dadka caadiga u qaybgali lahaayeen ay adag tahay tusaale ahaan sanad si aad ugu tartantid waa inaad 20 kun oo diiwaangelina bixisid marka macnaha already dad badanaa marka meeshii laga saaray oo maaragtay dhaqaalahooda iyo duruufahooda aan u ogolaanaynin inay maaragtay tartamadaas oo kala galaan waxay sidoo kale noo sheegeen inuu caqabad tahay xisbi ma lahan xisbiyadu waxay ka mid yihiin meelaha dadka ay kusoo tababartaan ay kusoo baxaan maaragtay maadaama xisbi siyaasadeed oo diiwaan gashan oo xisbi ahaan u shaqaynayo oo dhalinyarada iyo dadka qaybihiisa kala duwanaa ka qayb noqon karaan aanu shaqaynaynin dan inay caqabad ahayd waxay sidoo kale noo sheegeen dadka waxay sababaha ka qaybgalku u yaryahay inay tahay bulshada rayidka oo daciif ah oo aanan codkii shacabka maaragtay xoojinaynin iyo wacyiga bulshada maaragtay dowladnimada oo hooseeya isagana inay caqabad tahay iyo ugu dambeyn inuu jiro is-aaminaad la-aan u dhaxayso muwaadinka iyo siyaasiga oo siyaasiga iyo muwaadinka aanay xiriir toosana lahayn laba qaanad ku kala jiraan loo arka siyaasiga inuu maaragtay dowladda isaga xaq u leeyahay tusaalehaan hadda xamar jidadkeeda waxaa mari kara keliya qofka ID card dowladeed wato askariga qofka muwaadinka ah uma haysto inuu xaq u leeyahay jidkaan inuu mari karo oo gaari ku mari karo maaragtay kaarkaaga hadduu loogada dowladda ama xafiis dowladeed oo markaas ay yaqaanaan aanu ahayn iga laabuu ku leeyahay marka yacni gaab inuu udhexeeyaba dowladdii iyo shacabkii iyadana sababahaasay noo sheegeen dadka inay caqabado ku yihiin ka qaybgalka ay uga qaybgal lahaayeen hababka siyaasadeeda socdo waxay sidoo kale noo sheegeen dadka inay jiraan fursado hadda abuuray in dadka ay fursad u helaan inay uga qaybgali karaan doodaha siyaasadeed ee socdo kow waxay sheegeen in social media hadda maadaama aada loo isticmaalkiisa u batay ay maaragtay ku influence garayn karaan codkooda ay ku cabiran karaan mararka qaar dadka inay cabasho iyo ay sameeyaan mudaharaadyo tusaale ahaan dhowr jeer oo waxaa dhacday xamar bajaaj in askari qof driver in askari dilay ay mudaharaadeen madaxdii gobolka markaas ay la hadleen askarigii lasoo qabtay waxa sameeyey operation noocaasa in ay qaabkaas ku abuuraan inay sidoo kale interaction la sameeyaan siyaasiyiinta xilliyada campaignka doorashada uu jiro markaas maadaama ay cod rabaan inay soo raadiyaan ay xoogaa engage gareeyaan bulshada
waxaan daraasadda nooga soo baxday in dadkii aan wareysanay ay niyadjab weyn ay ka muujiyeen sida spaceka ka qaybgalka hanaanka siyaasadeed iyo dowlad dhiska socdo sida ay uga maqan yihiin oo loo kuusaayo inay frustration badan ay ka muujinayeen. waxaa sidoo kale noo soo baxday inay dadka ay aad u danaynayeen hab furan oo doorasho iyo xisbiyo siyaasadeed oo shaqeeya inay tahay habka ugu fiican ay ka qaybgalkooda ay ku ballaarin karaan. waxaa sidoo kale ay ku taliyeen dhowr talo oo reportkana aan gunaanadkiisa ku qeexnay. dadku waxay ku taliyeen in la abuuro fursado ay muwaadiniinka si toos ah u inform garayn karaan una saameyn karaan go-aanada golaha wadatashiga qaran oo kale hadda ay ka gaarayaan arrimo badan oo masiiri ah ee dalka. iyo sidoo kale doodaha la xiriira dib u eegista dastuurka. guddoomiyihii guddiga madaxa banaanaan nala joogo. dadka way ku taliyeen in space looga doodo fikradahooda ay ku dhiibtaan arrimaha siyaasadeed iyo arrimaha dastuurkaba in loo abuuro. in sidoo kale la xoojiyo, la abuuro, lana taageero doodaha u dhexeeya dowladda iyo shacabka ay isugu imaanayaan. waa waxyaabihii dadka ay ku taliyeen uga hadlayaan arrimaha muhiimka u ah ee dowlad dhiska Soomaaliya. in sidoo kale la ballaariyo civic educationka iyo muwaadinka in la baro xuquuqdiisa iyo si wacyigiisa sare loo soo qaado. in la xoojiyo bulshada rayidka si ay cod ugu noqdaan bulshada ay codkooda ku hadlaan. waxyaabahaasaa ka mid ahaa talooyinka aadan u tiro badan yihiin waxayna ku qoran yihiin reportka. waqtiga maadaama aan dib ka bilaabno discussionka waxaan rabaa inaan intaas kusoo gunaanado. hard copy iyo soft copy isagoo ah reportkana waa heli kartaan. marka wixii su-aalo iyo discussion la xiriirana oo aweys aan usii daadisan noqon. aadam asni asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa soo koobi karaa laakiin doodana waxbaa la ii diray wixii la ii dirana waa u imaan doonaa hadhow. laakiin warbixinta sidaan u arka waxay tahay aniga waxaan ka fahmay oon ka soo baxsaday intii uu dagaalku dhacay uu bilowday shirarkii kala duwanaa ee lasoo qabtay go-aamada ka soo baxa dadka fulinaya ama ka qaybgalaya inay marba marka ka dambeysa soo koobmayeen ama dadka shirarka galayay ay soo koobmayeen ay soo yaraanayeen. shirarku waxaa ugu horeeyay shirkii Addis Ababa ugu horeeyay oo 27 Maarso 1993 dhacay. mid yaraa ka horeeyay laakiin midkaan dambaa aan nuxur badnaa midaa dhacay aakhirkii 29 December kana ku xigay oo Maarso dhacay 27deedii. waxaa ka qayb galeen marka 15 ururo ama jabhado ka qayb galeen shirkaasayto. kuwo hubeysan iyo kuwo aan hubeysnayn oo laakiin ku lifaaqan markaas midba ku lifaaqan kuwa hubeysan. waxay u muuqday baaxad weyn inuu lahaa oo dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb galayeen ayadoo dad mas'uuliyiin ay uga qayb galayeen oo aan laga kala maqnayn. waxaa markii kusoo xigtay waxaa moodaa shirarkii ku xigay dadka hogaaminaya shirarka oo ka qayb galaya inay soo koobmayeen soo yaraanayeen ilaa hadda aan nimid 7 nin aa kusoo celiseen 7 nin inaan nimid. haddii saan lagu sii socdana waxaa dhici karta 7 nin inay sii kala yaraadaan oo hadda shirka ugu dambeeyayba midaa ka maqnaa. hadhowna maxay sii noqon doontaa haddii dariiqa hadda lagu taagan yahay lagu sii taagnaado. horta arrintaasaa iiga soo baxday.
ka qaybgelinta dadweynaha ayada nafteeda waa sida la sheegay waaye dadweynaha waa ka qaybgalkooda aada u yaryahay waa kasoo dhex shaqeeyay waa soo arkay shirkaasaan ku noqonaa oo maarso 27 maarso 93 dhacay wuxuu u muuqday haddii uu fuli lahaa ka qaybgalka dadka inay badan lahaayeen maxaa yeelay sida shirarka kale markasta waxaa go-aan lagu soo gaaray dowladda lagu soo dhisay laakiin shirkaas dowlad laguma soo dhisin waxaa la yiri hala laabto waxaa la go'aamiyay in la soo dhiso degmooyinkii waxaa waliba la go'aamiyay degmo kasta inta ay noqonayso 22 xibnood waa inay noqotaa oo ugu yaraan hal xibin ay haween tahay degmada in gobolkii la soo dhiso haddana federaalkii la dhiso dowladdii dhexe oo kore waxay ahayd degmooyinku ayagaa usoo dirsanaya dadkooda gobolka uga mid noqonaya gobol kasta oo 18 gobol ka mid ahaydna waxay soo dirsanayeen lagu heshiiyey 3 xibnood oo hal xibin ay haween tahay gobolka banaadir gobolada kale 3 la siiyey gobolka banaadirna 5 xubnooda la siiyey laakiin meeshii laguma dhisin waxaa la yiri dadka ha loo noqdo xagee laga soo bilaaba degmada laga soo bilaaba UN-ka mas'uuliyadaas la saaray nimankii isu yimid oo organisationada kala lahaa ama ha noqdaan kuwii hubeysnaa ama ha noqdaan kuwii kaleba waxaa la saartay UN-ki inay degmooyinkii tagaan ay soo dhisaan degmada la tagayay dadweynaha oo dhan la shirinayo oo isu soo baxaya waxaa la dhahayay waxaa haysatiin bil kadib aan ku soo noqonaynaa waxaa la idinka rabaa 22 qof dadku bishaas oo dhan waa is haystaan way shaqeynayaan way waxaynayaan bil kadib loo noqonaa ayagoo 22 qof keenay maalinta la yeerinaana marka dadka oo dhan isu soo baxay 22 kaana la keenay raalli ma ka tiin meelaha la dhahay kama nihin oo diidaay oo isqabsanayeen oo laga tagaayo waa la idinku soo noqonaa ilaa waxaan ka wadaa meeshaas waxay ahayd dadka waxaa la siiyay opportunity inay uga qayb galaan magacaabida dadka xukumaaya oo maamulka u qaban doono nasiib darro ma dhicin nimankii hubka watay oo qablayaasha dagaalka ah qaar ka mid ah arrintaas waxay u arkeen dhiilo waana ka hor yimaadeen sideena ku baa dagaaladii waaweynaa dagaalkii waaweynaa ka dhacay UN-ka in la diriro in la ceyriyo meeshana ay ku baado hadda waa aragtiina waxa la 22 xibnood degmooyinka meeshaas ay ka timid 22 xibnood oo degmooyinka maalintaas ay timid taasaa noogu dhaweyd in oo bulshada la aado ayadana waa la hakiyay kuwii ka dambeeyana inta isu timida wax magacaabinaysa ilaa maanta aan ka soo koobmayno koobnaantaan marka saan uga baxnaa waa meesha maanta aan ka doodi doono oo wixii aan u baahinaa ka qaybgalka loo badiyaa waa mahadsantahay aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa marwo duniya wixii kaaga baxay warbixinta nuxurkeeda بسم الله الرحمن الرحيم قلب وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وكفرح سنة مانت تدكي سامينت كلها إني ماشي جوغان ببلغ جندا ريسيرش كان أنا وحان إنو صوبان دكتيب وواحد جيرو وآد ويدي ذالين waxaa u malaysaa inay aada u soo koobeen waxyaabo badan oo jiro ayna soo xaqiijiyeen marka dhalinyaro waxyaabo badan oo hore ay usoo bandhigeen qayb baan ka ahaa marka aadan ugu faraxsanahay tan inaan qayb ka noqdo waa run aniga horta nin walba dhinac buu ka jiraa aniga arrimaha bulshada maadaama aan civil society-ga aan ahay oo xagga bulshada aan ahay sida Xaliimo u sheegtay marba marka dambeysa waxa way soo koobmayeen sida warbixinta daatooyinka la soo aruuriyay ku jirtana waxaad arkaysiin qaabka ay u dhismeen markuu noo sheegay dawlad dhiskeenan 2000 inay soo bilaabatay oo tii ugu roonad ay ahayd tii carta oo bulshadii laga qayb galiyay bulshadii rayidka ahayd ay qayb ku lahaayeen markasta moor oo bulshada loo dhaweeyo waxa ka soo baxaya way ka sii fiicnaanayaan wax kasto sababtoo waxa waaye wax kastana si qaabka ay ku bilowdaan ayay u ekaanayaan Puntland tusaale meesha way ku jirtaa marka la soo qaaday 98kii waxa waaye dad iyaga isu tago dadkii ayaga tashtay iyaga
markaas samaystay waxaa kasii horeysay 91kii somaliland isu tagooda iyagana ay sidaasoo kale ay samaysteen yacni marka mujtamaca waxa iyaga ay qofka ay rabaan iyaga soo dooranayaan iyo marka kor looga keenayo waa adag tahay waa la soo sheegay warbixinta dib uguma noqonayo in kor wax walba kor ay ka imaanayeen markii horeeto waxay ahayd yaa wax dilay yaa awood leh yaa qori haysto dibadaha la iskaga wici jiray dibadaha lagu soo dhisi jiray dowladda 2002 alifkii xoogaa horumar la sameeyay horumarkii laakiin dhinacna waa bulshadii waa laga ururiyay wixii oo waxaa imaaday 2009 alle marka Djibouti process waxaa ogtihiin in ARS iyo dowladdii markaas jirtay la yiri markasta waxaa arkaysaa qolada authority-ga haysato in dadka talaba aan laga gelinaynin ee intaas yar la waxeenayo mar waxaa jirtay saxiixayaal hadda waa u jeedin NCC habeenkii ugu dambeysay madaxweynaha waraysiga ansiya waxay ahayd aan su'aashi aan weydiiyaa waxay ahayd 7 qof masiirka ummadda maka 20 milyan ma ka talin kartaa jawaab wacan ma aan helin laakiin waxa waaye taas mar walbaba inaan isa su'aalno waay sababta 7 qof masiir ummadeed xaliimana way ka dhawaajisay ma ka waxin karaa waliba waxay isu bixiyeen daneeyayaasha siyaasadda waxaad arkaysaa laba round kaliya inay yihiin kuwa mucaarad ah oo kuwa markaas ka dego oo mucaarad noqonaya xukunka oo kasoo dega buurka markay kasoo degaan mucaaraday noqonayaan markay buurka fuulaanna muxaafaday noqonayaan meesha waxaa arkaysaa inaan mujtamaciiba waxba oga jirin oo bulshadiiba talo ku jir lahayn meeshaan waxaa waaye politician kaliya ayay kusoo ururtay arrimihii masiirka ummadda hadday doorasho ahaan lahayd hadday constitution ahaan lahayd hadday masiirka ummadda ahaan lahayd waxay kusoo koobantay 2 kooxood sida marka la isku soo ururiyo koox buurka markaa saaran oo difaacanayso iyo koox ka degtay shalay oo kooxdaas haddii ay janno sameeyaan dhahayo waxay ka fiirinayaan side-ka on positive-ka negative-ka marka ummaddiina waxay noqdeen bulshadii rayidka annaga aan ka mid nahay fiirsadayaal aan noqono yacni waxaan ku mashquulnay labadan kooxood sidaa u jaaj garayn lahayn aan ku mashquulnay kuma mashquulin bulshadii inteedii badneed 70% waxaan meesha lagu hayo aweerka ma hayaan kan markuu wax waayo uu ku oorkacsadaa kanna markuu meesha fuulo xoogaa ree hebel ay arkayaan inay hebel ah marka meeshii waxaa ka soo baxay bulshadii rayidka naftarkeedii yaa waxay noqotay wax lagu adeegto marka aad tiraahdo hadda gobollada aad tagtid bulshadii rayidka aad tiraahdo saameyntoodii iyo waxoodii fiiri waxaa arkaysaa inay mararka xoog leeyihiin bulshada markaas joogto waxaa ognahay 6 gobol iyo 3 gobol South West oo kale tusaale markaa usoo qaadano dhibaatadii ka taagneed waa ogeyd iyo dhibkay ku bilaabatay waa ogsoonahay iyo qaabkay u bilaabatay yacni tan gal muxuu ahaan Jubbaland waad ogtihiin ilaa hadda dhibaatada ka taagan waa ogsoontihiin inay 3 gobol ishaynin haddana wixii ummadii lagama talagelinayo waa arkaysi oo waxa waaye hal waxa meel kastaba waxay noqotay dawlad hal nin ah marka shicibba meesha waxba kuma lahan state hadday noqon lahayd oo stateyadii ahaan lahayn waa dawlad hal nin halkaas nin alla daba ordaya waa naxaysiin markaad tagtiin stateyada caasimadahooda markaad tagtiin madaxweynaha markuu joogo waa la buuxaa magaalada way camiran tahay markuu soo dhoofo oo uu xamar iyo meelahan soo aado magaalada waxaa is leedahay ma laga guurin micnaha waa hal nin hoggaankiisi waaye waxa dhan lama jiraan wasiiradiisii mararka qaarkood markii doodaha iskugu imaadaan dhuuse mareeb 1 iyo 2 markay iskugu imaanayeen doodaha oo ayaga dhexdooda heshiinayeen wasiiradii la jiray ayaa wareysanaysaa war ninkan muxuu damacsan yahay war uma hay aduu ku wareysanaya maxaa is soo dhahdeen ugu leey waana wasiir ka tirsan isla state-ki marka horta maxaa sheegi isla politician-kii baa banaanka ka joogo marka anoo shacab ah access ba uma lihibo meelaha qaar oo kaleeto walaashay xaliimo oo kaleeto ururkii way dadaashay wax badan ay soo qabatay
waa aragteen intay meel martay iyo intay soo waxaysay access uma lihi aniga inaan taga xafiiskeeda sababta madaxtooyadu ku dhex yaala ma tegi karo jidkii hadda maanta waxaa jidkan waxaa kusoo waxaa layidhi keen maxaa la dhahay kaar keen ani kaar ma lihi dowladda dadka dhan state ma aha in yaraa ah marka waxaa waa ciqabadahaas oo dhan way jiraan warkayaan isku dheerayn waxa waaye horta participation wax la sheego oo meeshaan inta daneeyayaasha siyaasadda la leeyahay ma jirto waxaa kaloo meesha taallo annaga adaad daciifnimada annaga inaga timid bulshada rayidka ayaa waxaa la rabaa horta qofkan xaqiisa in la baro in curriculumkii la soo geliyo cunugan inuu horta xuquuq leeyahay inuu siyaasadda ka hadli karo mararka qaarkood waa naxaa aniga waxaa leeyahay waxaa dhallinyaradii waxaa lagu dhahayaa mustaqbalka berriyaad tihi war berri haddii adiga aada berri lagu dhahay anigoo 60 jir ah maxaan qaban karaa aniga talo leen yeelan karaa war saasay ahayd waxbaan sheegi karaa laakiin waxa waaye aniga iyo adiga marka la isku daro ayaan dowlad dhisi karna haddaan adiga ku dhisin aniga ma dhismaayo waxa waaye yaa la idin dhihin waxaad tihiin mustaqbalkii berri ma tihiin kii maantaad tihiin aada umahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir hore mudane cali xaaji warsaqe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم آدي آد بان وبهد أنا مدشة سنان بابلك أجندة يا دراسة وأستاذ مهد سوق بيه وحن كرادو سلامة يا تيمك هلكا فردية ورنتي dad jilib culus ah marka laga hadlayo siyaasadda Soomaaliya runtii daraasadan in fiican baan ka akhriyay inkastoo aanan qodob kasta ku dul istaagin waxa laga hadlayaana waxa weeye sidii bulshadeenu fursad ugu heli lahayd inay siyaasadda ka qayb qaataan dabcan qaabo badan ba hadda siyaasadda looga qayb qaataa waxay yiraahdeen marka expanding public participation in politics in la waasiciyo bay yiraahdeen runtoodu weeye maxaa yeelay already inta ay soo sheegeen labada marwo waxay ahayd qaybo kamid ah ama ha yaraataba ha badnaatee in already siyaasaddii wuxuun saameyna lagu leeyahay haba soo yaraatay xirad laakiin in la ballaariyo oo aynan dib u soo noqon ayay muhiimadda u weynahayd waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka ay soo waraysteen waxaa muuqata daraasad dad fara badan laga talageliyey maamuladoo dhan bay tageen dad key informantis ah iyo group discussionisba waa ay soo sameeyeen oo number fiican marka waa daraasad representative oo mathalaysa dad badan oo dadkeena ka mid ah saddex arrimood baan isleeyahay halkaana lagu xusay qayb ahaan ayaa siyaasadda participationkeeda qayb weyn ka qaatay mid waxay ahayd carta midii lagu heshiiyey oo ah in dadka Soomaaliyeed siyaasadda ku qaybsadaan 4.5 midna waa midii dambe oo Imbagati ama Kenya oo ah in nidaamka dalku noqdo nidaam federaal ah walow details badan iyo qaabka uu noqonayo aan lagu darinin midda saddexaadna waxay ahayd midii labadii doorasho dambe lagu qabtay oo indirect election ka ahayd oo number 275 inta xoogaa la dhaafay bal 30,000 mise 25,000 wuxuu la gaarsiiyey waxaasoo dhan waxaa ka muuqata limitation inaan dadkeena bulshadaahi aysan weli siyaasadda cod ku lahayn waana meesha daraasaddu ay runtii aada u fiirinayso waxay keeneen sababaha anuu runtii inta mahad xusay waxyaalaha aada ii soo jiita waxaa ka mid ahaa arrinta ah in lala diro external funding qodobkaas unrealistic weeye waa run waa la soconnaa dowladaheena dhismay dhaqaalaha meeshay ka keeneen cid dhaqaale xisbi ah oo dhaqaale abuurtay oo dadka gudihiisa inta xoola ka aruursatay ku tartantay waa yarta marka inkasta oo aynaan awood u helin inaan dhaqaalaha siyaasadda lagu raadinayo xakamayno haddana waxaan isleeyahay qodobkaasi waa qodob aada iyo aada runtii muhiim u ah qodobka kale oo aan isleeyahay daraasaddu aad bay runtii u taabatay waa qodobka top down approachka oo Somaliland iyo Puntland lagu dhisay dadku iyagaa la baxay lacagtooda iyagaa shirka maamulay iyagaa ajandaha keenay iyagaana go'aan ka qaatay waana sababta keentay ilaa xad stability-gooda inkastoo hadda question balabadiiba uu yahay runta marka la sheego haddana inay relatively stable noqdaan waxyaalaha keenay weeye
maamuladii kalena inay ama degi waayaan ama qof uu go-aankeeda yeesho. waxaan isleeyahay dadku inay waxaan wadaan bay ku macno badnayd, macnona ku yeelan lahayd. qodobka insecurity-ga waa qodob jira, lama inkiri karo. dad fara badan waad ogeedin doorasho halkan ka dhacday, dad fara badan oo laba mask ee sanka ku xirtay iyo madaxa si aan indhahooda iyo dhegahoodaba iyo wejigooda loo arkinin. marka waa run wax jira weeye, laakiin wax diidaya bulshada inay ka qayb qaataan runtii siyaasadda may ahayn. arrinta kale aad u laaxidaan waxbarashada ka soo shaqeeyey, waxyaalaha muhiimka waxaa ka mid ah bulshadeenna inuu hooseeyo wacyigooda siyaasiga, civic education. ilaa haddeer kuma aynaan guulaysan waxbarashadana inaan ku darno ardayga muwaadinka xaqa uu leeyahay, xataa ardaygu xaqa uu leeyahay ama muwaadinku xaqa uu leeyahay inaan daraasadeena ku darno, oo dadka dhalinyarada ahi ay ka soo bilaabaan from school dayska inay siyaasadda ka doodaan iyo inay xuquuqdooda ogaadaan. waxaan kusoo xirayaa markay ka hadleen recommendationska aad iyo aad baan runtii ay macno u leeyihiin qaabkay usoo dhigeen. hal qodob baa aniga isheeda qabtay oo aan israalle qodobkaasi inay xoogaa kaga adkaystaan baa ka fiicnay. waa qodobka ah regardless of the education or election model in 2026 candidates should engage public in the electoral process. waxay yidhaahdeen si kasta oo 2026 lagu galo electionka soo socda, haddana waxay yidhaahdeen waxaan arkaynaa inay muhiim tahay in loo gudbo inay bulshadu participation ka samayso, oo macnaheedu tahay universal suffrage. xataa haddaynu xataa gaari weyno, waxaan rabay inay daraasaddu ku adkaysto inay tiraahdo doorashada soo socota waa in lagu galaa inay bulshadu foodgarayso, madaxdooda doorato state level iyo magaranaysa federal level. hadda meelaha laga bilaabay Somaliland iyo Puntland labadaba khalad baa ku jira. qaabka dimuqraasiyaashanka loo abalay gareeyay ma ahayn qaab public ay wadaane, qaab nimanka siyaasiyiinta ay wadaan bay ahayd. wayna iman doonta culayskeedii iyo waxa ka soo bixi doona, laakiin si wanaagsan inaynu uga shaqayno in aynu ku adkaysano, waliba dhalinyaradan si gaar ah ula sheegaya inaan ku adkaysano inaynu dooranno madaxda, oo anigu aanan ku fekerin inaan lacag raadiyo si aan u tartamo, ee aan ku fekerin inaan sawd iyo cod raadiyo si aan u tartamo. inta kale aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. aad buu mahadsan yahay mudane cali xaaji warsame. waxaan siinayaa gudoomiye burhaan sadow. gudoomiye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu horeyn waa salaamayaa madasha oo dhan, gaar ahaan waxaan mahad celinayaa hay-addan soo abaabushay misna soo diyaarisay daraasadan wax ku oolka ah oo runtii waqti loo baahan yahay dhinacayaga iyo xaaladda waddanku marayo aada loogu baahnaa timinka iyo mataqaanaa nuhurka ay xambaarsan tahayba. maxaa yeelay laba dhinacba weeyaan, oo dhinacana dastuurkiiba dib uegistiisiiba dardargelin ka socotay, dhinaca kalena doorashooyinkii iyo heshiisyadii golaha wadatashiga qaran oo bilowday, iyo sidoo kale dowlad goboleedyada laftigooda oo kale doorashooyinkii soo dhowba. marka runtii waxaan is leeyahay waqti munaasab ah oo loo baahnaa, oo misna doorasho kalena laga soo baxay oo wax badan laga baran karay bay ku soo aaday. marka aad baan ugu mahad celinayaa runtii, waana public participation la sheegaya qayb ka tahay. maxaa yeelay hay-aduhu ayna cilmi baaristan oo kala samayso oo caqabadaha lasoo wareysto oo dadku ogyihiin dhibaatooyinka jira iyo fursadaha jira iyo talooyinka ciddii hagi lahayd bay ahayd. marka aad bay umahadsan yihiin, waana loo baahnaa. haddaan dul istaago daraasadda, qaybo badan bay ka kooban tahay. caqabadaha oo runtii aan isleeyahay qaarkood waa dul istaagi doonaa, iyo sidoo kale fursadaha iyo talooyinka. saddexda qaybood iyo taariikhdii soo jireenka ahayd oo soo maray iyadoo lagu abaalgareynayo oo Soomaaliya marxaladihii siiba jamhuuriyadda saddexaad, tii koowaad iyo tii labaad, tan saddexaad bay focuska si fiican u saareen, oo processkii siyaasadeed ee Soomaaliya soo maray oo marxalado kala duwanna soo marayay bay ahayd. laba dhinacna focuska si fiican bay usii saareen, oo dowlad sameynta ama dowlad dhiska iyo dastuur sameyntooda iyo doorashooyinka. marka waxaan isleeyahay hadda caqabadaha kale haddaan dul istaago, caqabadaha waxaan isleeyahay runtii caqabado dad xoogaala ama qayb ka ahaa soo jireenkan iyo dhibaatada jirta ee bulshada ka qaybgali inay xadidan tahay oo aada u xadidan tahay, tilmaamaya sida amniga oo kale, doorasho qof iyo cod ah aysan jirin,
oo ugu dambeysay dadka hadda Puntland bay ka dhacday, Somaliland waa ka dhacday, Puntland waa ka dhacday doorasho qof iyo cod ah. marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay qof wuxuu dareemi karaa markuusan fursadba jirin, xisbiye jirin. dabcan waad dareemaysaan mar odayaal baa wax soo xuli jiray, mar siyaasiyiin baa wax soo xuli jiray, mar mataqaanaa 51 baa wax soo xuli jiray, mar 100 iyo xoogaa, mar xataa dowlad goboleeda wax soo xulayay. marka process wuxuu iska ahaa iska xadidan oo cidda gacanta ku haysan ay aad u xadidan tahay. marka waxaan isleeyahay horta fursadaha caqabadaha ugu waaweyn oo dadkii aan fursad la siin inay qayb weyn ka tahay oo caqabadaha sida loo tilmaamay, iyo siyaasaddii hanaanka siyaasadda oo aad moodid in ay gacan ku hayso dad maaragtay liida oo kooban, oo taasna ay keenayso fursadaha iyo shaatiga la tolanayo laftigoodu inuu isku dhawaanayo. taa laftigeedu marka caqabaduhu tilmaamayaan runtii waxaan isleeyahay waa caqabado aad u jira. waxaan dul istaagi lahaa waa dhinaca daraasaddu ay ka istaagtay siyaasiyiinta go-aanka leh, laakiin dhinaca shacabkana waxay ku dul istaagtay in shacabka laftigiisu wacyigiisii iyo doorkii loo baahdaa uusan lahayn. tan labaad, bulshada rayidku doorkii ciyaari lahaayeen ama ciyaari lahaayeen inuu aad u hooseeyo oo daciif yahay. taasna anugu aan maadaama dastuurka hadda qayb 5 sano horena waa ku jiray, haddana qayb aan ka ahay, waxaan dareemayaa bulshada rayidku halba sida wax u riixaan laftigeedu inay qayb weyn ka ciyaari karaan mataqaanaa processka ka qaybgalka mataqaanaa siyaasadeed. maxaa yeelay haddii waddanku waa ka duwan yahay 2012 2020 iyo 93 laba waa ka duwan yahay, intaasoo dhan waa kasoo duwan yahay. waxaa la maray 2023 ama 2022 bulshada rayidku iyo shacabka Soomaaliyeed wacyigiisu oo dhinacaas social mediaha iyo wacyiga helitaanka xogta loo baahan yahay waa dareemi kartaan aad buu uga sarreeya, oo communication haddii noqoto dhinaca kasta noqoto. laakiin ka qaybgalkooda in aragtidan baan qabnaa oo loo doodo oo waqti la gasho oo lacag la gasho oo dhinac kasta laga sameeyo, waxaan u malaynayaa laftigeedu qaybta looga baahnaa bulshada rayidka ama bulshada qaybaheeda kala duwan inaan laga helin, oo daraasaduna aad u tilmaamsan. tan saddexaad, tan u dambayso aan rabay inaan dul istaago runtii xagga shacabka ah kalsooni la-aanta. maanta haddii la dastuur baa la sameynayaa oo laga shaqeynaya dawladista ka qaybgala, waad dareemi kartaan kalsoonida ka dhexaysa waxa la wato. hebel baa waxaan wata sidaan weeyaan, war waxaad wadata iska daayo horta bal taladaadii iyo waxaad rabtay inaad gedid. kalsoonidaada haddaad ku qabto horta processkan waa process socdee, geedigan socda wax ku darso, aragtidaada dhiibo, meel kasta geli, mataqaana ciddii codkaada gaarsiin karta dhinac kasta u gaarsiiso, ka qayb qaado. kalsoonidaasna waxaan dareemayaa laftigeedu in mataqaana iyadoo aan dareemi karno shacabka dhinac kasta markii aad ka eegto, ama security ha noqoto ama dhinacyo kale ha noqoto, ama processkan dowlad dhiska Soomaaliyeed oo sidii loo baahanaa ama sidii u jeclaa aan mataqaana yareen. xagga fursadaha kale aad bay u tilmaameen oo runtii fursado fiican oo aan isleenahay dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dowladduba inay si fiican uga faa'iideysan karaan baa ka muuqata. waxaan rabaa inaan dul istaago iyo talooyinkaba ay bixiyeen oo runtii ayadana wax ku ool ahaa. waxaan rabaa inaan dul istaago arrimaha NCC-da iyo golaha wadatashiga qaran oo ayaguna ay tilmaameen oo talooyinkoodana ka mid ahayd. hal dhinac baan kasoo eegayaa oo dhinacii waagii hore dhici jirta waxay ahayd dastuurka Soomaaliya ay leedahay saxayaal baa kulmay, saxayaashaasaa wax isku raacay. IFCC-dii iyo xagga haddii la iska dhigay waxoodii iyo waxoodii oo dhan baa saxayaashaas wax isku raaceen. kadibna 825 oo aysan waxba ka bedeli karin haddii kale baa la isu keenay oo la yar gacmaha u taagay. processka dastuurkan marka taas dastuur sameyntii bay ahayd oo go-aankii masiiriga ah oo gacanta waxa dhibaatada hadda Soomaaliya ka jirtana qayb ka ahaa oo runtii dhibaatooyin ka mid ahaa in processkaas oo degdeg ah hore ugu soo socday, laakiin muddadii la qabanayo dambe oo saxayaashu go-aanka waa dedejiyeen muddo kooban oo aad u kooban bay wixii oo dhan gacanta kusoo dhigeen. laakiin maxaa dhacay 6 saxayaal kaliya noqdeen, bulshadii rayidka ahna ka qaybgalkoodu aad u yaraa. laakiin hadda way ka duwan tahay. 7 oday wax saxay ama NCC-da la yiraahdo way ka duwan tahay tii hore. tan waxay uga duwan tahay dastuurkaas wuxuu tilmaamayay in heshiis laga gaarayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu arrimaha qaarkood oo ay u madladeen
ama u degdegteen oo arrin maadaama degdeg badan jira waqtigaas ay yidhaahdaan sida resource sharing oo kale allocation of powers oo kale iyo sidoo kale maaliyadda oo kale arrimahaas ay yidhaahdeen iyo arrimo kale oo siyaasadeed heshiisa laga gaaro heshiiskaas marka final ma noqonayo arrintaan rabo inaan hadda aan baraarujiyo waa taas weya final ma noqonayo haddii macaa go-aan gaaraan way ku fiicneed inay ka hor ka qaybgal dadweyne uu jiro laakiin haddii uu soo gaaray macnaheedu kama dhigna ilbaabkii baa xiran annagu hadda dastuurkii waan ka shaqeynayna dibogista aan ka shaqeynayno hadda waxaana soo gaaray go-aamadii ay gaareen oo dhan waana soo gaareen go-aamada ay gaareen annagu waxaan ayagu heshiisa baan waxaan gelin doonaa dibogista dastuurka cutubyada ay qaybta ku leeyihiin cutubka afraad iyo cutubyada kale oo ay quseeyaan heshiis kasta uu quseeyo baarlamaanka loo gudbinayaa oo qeyb ka noqonaya isagana dooda iyo wacyiga laftigiisa bulshada rayidka qeybaheeda kala duwan oo lala tashanaya macnaheedu waxay ka dhigan tahay qeybahaas la tashiga dadweynaha doodii baarlamaanka wixii oo dhan waxaa lagu celinayaa marka saameyn kalaa weli sii jirto oo ah in baarlamaankii 184 baa golaha shacabkana laga rabaa aqalka sarena waxaa laga rabaa 36 2/3 ama 3/2 iyo 3/2 marka waxaan ka wadaa qeyb weyn baa weli waxay ka ciyaarin karaan bulshadu haddii ka arkaan aragti ay isleeyihiin waxbaa ku biirin kartaan ama waxbaa ka khaldan golihii go-aamada ay gaareen ama doorasho ha noqoto garsoor ama dhinac kasta noqotee waxaan aaminsanahay fursad aada u fiican oo aan ku dadaalayno sida ugu badan haddii kalsooni la isku qabo wayaan oo shacabkuna uga qayb qaadan karaan su-aasha ugu muhiimsan oo kale wayaan dadku see uga qayb qaadanayaan waa su-aal muhiima dadku intaanoo kale lasu keenay noqonayaan ma social media la adeegsanayaa ma dad iliid oo kale oo magaciisa loo yeerayaa ma waxa sidee loo sameynaya laftigeeda taas anagoo ka duulayna daraasadaan oo runtii wax weyn ka tari doonta laakiin waxaan isleeyahay fursad weyn oo go-aamo masiiri oo la gaari doono weyaan marka go-aamada waxaan isleeyahay bulshadu qayb weyn bay ku sameyn karaan waad ogtihiin haddii wax la sameynayo baarlamaanka baa la sameyn karaa oo saameyn fiican lagu yeelan kara xildhibaanada waxaa lagu saameyn karaa talooyin badan oo kale marka ma badinayo kolba waxaan laakiin leeyahay daraasada wax ku-ool kusoo laabanayna waxaan jecelnahay marwa xalimiiri inaan siiyo sidee suuragal see loo qaybgelin karaa dadweynaha ra'yigaaga iyo commentiga ku darsan lahayd bismillaahi raxmaan raxiim intaan taas u gelin waxaa mar kasta lagu soo celceliyaa doorashadii indirectida ahayd 51 iyo 101 aa gashay waa dhici kartaa 51gii xildhibaan kasta 51gii inta badan 80% in xildhibaanku ay soo doorteen waa dhici kartaa laakiin midii dambe ee 101ga ahaa waxaa la rabay in ay doorashada gasho 27,775 qof inay gashaa la rabay laakiin sidaan ula socono oo aan aragno waxay ahayd degaankii doorashada ka dhacaysay hal erga keliya inay joogtay oo 101 ah 101gaas waxay dooranayeen xildhibaanadii goobtaas laga dooranayo dhan ay dooranayeen marka tiradii la yiri oo doorasho dadaa galaya la yiri ma aysan gelin dadkuna kama hadlin oo doorashadiina la yiri waa galaysiin ma aanag waxay ku tusinaysaa dadku meesha ay joogaan say u fog tahay iyo waxa socda sida loo dhigo say u dhaqan galaan isteedyada haddaad tagtid hal erga keliyaha fadhiday qofkaas soo galaya waa baxayay kii kaloo la dooranayaa soo galaya aawe 27,775 qof aad doorashadii gelaysa tan kaloo kaaga sii daran waxaa waaye doorashadu waa inay noqotaa wax daahfuran transparent inay noqoto qof doorasho galaya ee wejigii soo xirxirtay meeqo goru soo noqonayo maxay ahayd maxaa qadar la isu marin jiro qofkaan yuu soo noqonin qofka marka wejigiisa qarsoon yahayna inaysan meeshaas doorasho ka dhicin waa iska caddeed bulshadeennuna umaba abaabulno ama umaba fahamsanaba qaladkaas dhacaya inay iska istaajiyaan marka meeshaas waxaan ka tusaaleynaa bulshadu say u fog tahay meesha ay joogto waxa ay qaadanayso oo ay ku qancayso
sidee loo ballaarin karaa doodaha dadweynaha ee la xiriira nidaamka doorashada iyo fulinta. Anigu doorasho leh ka hadlaa, meel kale ma aadi karo, waxaanan aqoonin ma ka hadlo, mana aado, expertna iskagama dhigo. See dadweynaheena aan u hanuuninaa. Siyaabo badanaa jirto oo dadka loo hanuuniyo, siyaabo badan oo dadka ay shaqada looga qaybgelin karaa jira, siyaabo badan oo loo dhiirigelin karo dadka aa jirta. Marka waxaan kasoo diyaariyey wax yar. Waxaa si loo helo nidaam doorasho oo lagu kalsoonaan karo, waxaa loo baahan yahay marka hore go-aan cad oo laga qaato in doorasho la aado, meelna lagu wada qorto oo lagu wada heshiiyo, lana wada ilaalsado. Wixii la qortay waa in la ilaalsadaa, si kale inaan markii la dhaqan gelinayo aan loo dhigin. 101 waa la qortay, 101gii ma dhicin, mana laga hadlin. maadaama aan nahay ummad kasoo kaabsanaysa burbur iyo kala qaybsanaan, marnaba yaan lagu fakerin isbarbardhigin inaa isbarbardhigna ma aha dowladaha hore u maray ama dowladaha doorashada qabsaday. dowladahaasaa doorashada way qabsadeen, maxaa u qabsan weyne, saasay u dhaceene, ayaga inay saas gaaraan meeqa sanay kusoo qaadatay. waa la kacaa, waa la kufaa, waa la kacaa, ugu dambeyntiina waa la gaarayaa. marka Kenya hadda oo noogu dhow haddaa kasoo qaadatid, doorashada see u gashaa, bulshadooda see uga qayb qaadataa, sidee laysu waxaya. waxa annaga haddaan bilaabanaynaa, ayaga hadda xisbiyaa u jira taabagalay. xisbigaas ayagoo weliba qabiilo u kala qaybsan, qowmiyaday u kala qaybsan yihiin, Soomaali, muxuu ahaay Sawaaxili, say kala yihiin tiradooda ay u kala qaybsan yihiin. xildhibaanaduna meelahaasay kasoo wada jeedaan, xisbiyaduna meelahaasay ay kasoo wada jeedaan. xisbiga markuu doorasho galaayo wuu baxaa, wuxuu tagaa degaamadii uu tagaa, wuxuu u geysanaa musharaxiisa. marwaxliin macadu raalli ah, waxaanan jeclan inaan dadweynihiina siino. haddaad noo soo koobi kartid qodobada way wanaagsanaan lahayd. maxaa loo baahan yahay markas in dadweynihii la diiwaan geliyo? waxaa loo baahan yahay inay kala fahmaan horta horeeto dadweynaha doorashada, in la kala fahnasiiyo. maxaa la dooranaa, yaa la dooranaa, sidee xisbi maa la dooranaa, mase waxaa la dooranayaa qof aa la dooranaa. teeda kale qofkaas la dooranaa ma madaxweynea, ma baarlamentariana, qofkaas la dooranaa muxuu yahay xataa dadku doorashadaas sida loo galaayo, in la baro sidee loo tartamaa. waxyaabahaas oo dhan waxaa lagu bari karaa, laguma bari karo muxuu ahaa raadi iyo muxuu ahaa iyo TV marka ugu horeysa inay hoos kasoo bilaabato. waa in manhaj ku aadan tababarka ama barashada doorashada uu jiraa. manhajkaasna qaybo badanaa soo galaya. waxaa soo gelaysa wasaaradda waxbarashada, waxaa soo gelaysa wasaaradda informationka iyo wasaaradda hanuuninta dadweynaha, waxaa soo gelaysa wasaaradda arrimaha gudaha. waxaa kaloo xoog badan oo soo galaya isagana guddigii doorashada, in dadka iskoolada in looga soo bilaabo, wacyigelin xoog leh inay jirtaa. wax aanaan waxba ka aqoonin aan ka hadlaynaa oo aan ka shaqaynaynaa. waxa aan ka hadlayno waa in la yaqaanaa, waa inuu dadkeena yaqaanaa. hadda Burhaan wuxuu noo sheegay shuruucdii in loo keenay inay wax socdaan. sidee ula taaba qaadaysiin bulshada? ma intaa ka hadashiinaa baarlamaanka u gudbinaysiin, markaasaa dadkii la leeyahay baarlamaanka aada, mase adinka naftiinaa hadda shaqo ah inaad bulshadii la jaan qaadiin oo bulshadii aadiin oo u micnaysiin waxaana la sameynaya, waxaana micnahoodu waa saas iyo saas iyo saas. dhalinyaradan halkaan fadhida loogama soo dhigin iskoolada. annaga waagaa iskoolka dhiganayna waa naloo soo dhigay, waa naqaanay. madaxweynaha waxa mas-uuliyaddiisa ay tahay waa la isu soo dhigay, waa la yaqaanay. sidee marka eliidka siyaasadda haayay iyo dadweynihii see iskugu xiri karnaa? waxa naga dhiman oo naga weynna waxa waaye midaas waaye oo dadweynaha daraasadana way sheegaysaa sida loo geli karo iyo sida loo sameyn karo. waxa kale waxa waaye xisbiyaan dhahnay. xisbiyadu ma aha hal qof inuu buug iska qaato uu dhaho xisbiyaan ahay. xisbiyada waxa waaye inay bulshada ku xiran yihiin waaye.
bulshada inay ku xiran yihiin waa qofka tartamayana waa inuu bulshada aadaa maahan hadda waxaa la dhahay close list aa la isku dooranaya liisaa la qoraa liiskaas sidee loo qoraa waa inaa fahamsan tihiin inta la fariisto qof inuusan iska qoranin liiska qofka galaya waa inay bulshada uu ka soo baxa tartan waa inuu aadaa dadka dhexdiisa inuu tartan u aadaa intuusan aadin tartanka doorashada si liiska xisbiga uu ku galo qofka doorashada aadaa uu ku noqdo waa in meesha uu degan yahay iyo meesha uu ka soo jeedo iyo xaafadda uu degan yahay laga soo ogolaadaa uu ka soo baxaa markaas ka bacdi uu aadi karaa liiska xisbiga uu doorashada u dirsanaa aada u mahadsantahay marwa xaliima waxaan jeclahay 2 daqiiqo inaan siiyo marwa duniya 2 daqiiqo haddaa kusoo koobi karto waqtigan uu nahay su-aashii ah ha sidee dadweynaha ha si kooban aye okay waa ku faraxsanahay walaasha xaliima waa runteed micnaha goobaha saan soo aragnay dib aan wax yar aan xasuusinaa anaga waxaa bulshada rayidka haddaan nahay waxaan sameynay centres anagoo bunso iyo sonso iyo junso iyo soswensa ah isteedyada dhan marka meel ubacaan sameynay doorashadii hadda ugu dambeysay waa soo sheegnay buugna waa ka qornay waa xaliimo waa la wadaagaynaa dhaliilahaas waxa keenayna haddaan sheegayaa waana in laga baxo waa sababta aan uga gudbi karno oo dadka wixii ay lahaan karaan arartaydii horena waa kusoo sheegay waxa waaye seed iyo feed inay meesha ka baxaan 100 qof oo meel lagu xareeyay muqdisho aniga goobjooga u ahaa 100 qof oo 7 xildhibaan doortay waa 100 keliya marba dhinaca kale ka soo galayaan jalbaabkay ku wataan afkii xirkay ku wataan 100kaas ayaa qoys dhan doortay waa qoran tahay waxaa qoran guddoomiyaasha hadda noo fadhiyo oo aqal sare iyo aqal hoose aniga hebel ma dhahay inay hato qoorkood dhaheen waa wax ila tartamayaba male waa maqashiyeen waadna ogtihiin waa soo bandhignay annaga warbixinteenna oo bulshada rayidka way ku qoran tahay laakiin sidee looga bixi karaa waa sidee looga bixi karaa waa in fiiri xaliimo ayadoo joogto oo guddi madax bannaan ah oo u tababaran ayaa 2 jeer guddiyo ugu kordhistay waa taan kuu sheegay waa one man state waay asagii haddii la dhaho 2 qof keenso sidii beri dhaweed dhacday beri dhaweed baaqan ka soo soconay press release aan qabanay markii la yiri guddi doorasho la dhisayaa dawladda 3 ay keenaysaa 2 waxaa keenaya isteediyada saasaa guddi loo dhisaya oo guddiga xaliimo na la yiri socda kala taga ayadii waxa aragtay asad ah oo waxa aragtay la geliyay marka maxaa xaliimo lagu eriyaday maxaa aniga igu soo doorayaan nimankan taa horta waa in laga baxaa annaga bulshadeed aan jilicsanaano yaan ahaan laakiin waxa waaye qori ma qaadan karno laakiin waa hadalnaa waxna waa qornay dhiilada meeshay ka jirto waxaan qornay inayna marna dimuqraadiyad ahayn in la dhaho nominate oo lasoo seed iyo feed in la iisoo nominate gareeyo oo hadhowtana wax 100kii qof oo 7 qof dooranaysa waxaad ogtihiin meelaha qaar hal sac iyo bar in 22 qof lagu soo doortay marka waxaas maxay ku dhaceen ninka asaa keenta anaa gaday anaana gadistay ma oraahd oo dhahay jirto gobolada dhexe laga dhaho waxa way anaa gaday anaana gadistay waaye marka taa horta inay ka hortagaan dadweynaha iyo indheer garadka iyo dadka wax xaran midda labaad waxa waaye axsaab in la helo oo proportional ah axsaab one man one vote waa soo aragnay Soomaaliland aan ka soo aragnay meelo badan aan ku soo aragnay qasaarooyinkood ninkii lacag lahayn markaas u gadmaysa laakiin proportional parity hadii la sameeyo waxa waaye marka horeeto ayuu xisbiga shuruucdiisa ku soo darayaa war aniga maxaa isiinaysa dadka haweenka meeqay helayaan haweenkan maalin walba ooynayo marka hore la soo gorgortamayaan xisbiga constitutionkiisa fiirinayaan marka dadkana waa in la baraa la xisaabtan oo ninkan doominayo maalin walba inay sacab u tumaan ay ahayn sacabka joojiye la dhaho oo axsaabta lagu soo tartamo axsaabtan constitutionadooda in la baaro adriska meeqay leeyihiin haweenka meeqay leeyihiin disableka meeqay leeyihiin yacni saasaan uga bixi karnaa markii horena waa sheegay waa in curriculumka laga helaa oo civic educationka laga helaa oo caruurta marka horeba waa aragtay wadamadan dariska aan la nahay
waxaa waa cunug hadda aniga cunugkay ahaa maalin dhexdaas waxay ku foorjeynayeen oo laga dhigay muxuu ahaa librariga iyo nadaafadda inuu qaato kii asaga ka horreeyeyna baarlamaanka dhan uu guddoomiye u ahaa iskuulka baarlamaankiisa markaasaa annaga baarlamaanaan joogi jirne ma haddaa nadiifiye noo noqotay nadiifiyahaba saan ku helay ma ogidiin uu yidhi marka waxaan rabnaa saas in loo soo dhiso waa mahadsan aad mahadsantahay maamo waxaan siinaynaa marti sharafta kale aan siinaynaa waktigoo aad noogu yar waxaan ka cudur daaranaynaa inaan wakti dambe bilownay doodii oo dadka marti sharafta qaar ay soo daahday waxaan jeclahay safka hore qof inaan ka siiyo waan qaybsanaynaa safka dhexna qof inaan ka siiyo geeskana qof inaan ka siiyo waa isku soo laabanaynaa hal mar ninkaas sii shaarka cada ku siinaya soo koob su-aal iyo comment waxa qabto magacaaga iyo meelaa ka socota haddii jirto ku bilow magacaygu waa xasan saciid cali waxaan ahay arday dhigta jaamacadda muqdisho kana bartaa maamulka iyo siyaasadda dabcan su-aal ma wato laakiin waxaan rabaa idinkoo inaad iyo ogolaataan aragti yar inaan cabiro soo koob dabcan dowladnimada markii laga hadlayo asalkeedii waa su-aalo ay isweydiiyeen dad shacab ah su-aalahaas waxay ahaayeen waxyaaba waxaa jira by individual aan loo qabsan karay laakiin si guud loo qabsan karay su-aalahaas yimid waxay keeneen in dowladnimo la dhisto waxa weeye si guud wax la wada qabsado annaga soomaali markaan nahay dabcan weli ma aysan dhicin ama bilowgii hore in dadka shacabka ahay ama soomaalidu meelintooda wada fadhiistaan sida dadkaas su-aalaha isku weydiiyeen inay dhisteen dowladnimo marka waxaan oran karayaa dhibta meesha naga haysto waxa weeye in marka hore bilowgeyn uu qaldamay waxa weeye quraan maxaa la yidhaha quraan alif ka qaldama albaqre kama tooso marka xalkan waan ku darayaa sida keliya oo loogu gudbi karo qaladkaas dhacay waxa weeye jiilasha haddeertaan jooga maadaama dowladnimadii fahamkooda uu ka qaldamay jiilasha soo socta inaan badbaadino waxaan keliya aan ku badbaadin karnana waxa weeye nidaamka dowladnimo nidaamka waxbarashada hadda jira in lagu daro dabcan waxaa la qaataa 13 maadimanaha hal maado dowladnimada ka hadlaysana ma jirto waana wax ugu muhiimsan hadda meeshaan looga wada hadlayo dalka ma ku dhisan yahay dunidana aan kala bartamaynaa marka waa in hal maado lagu dara oo ka hadlaysa dowladnimada marka intaasaan aad u mahadsan tahay su-aal ma qabtaa ninkaan siinayaa okay su-aasha please magacaaga ku bilow بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد عبد الله هل سؤال بس سؤال بان قبا سؤال شكوباد وحاوا إيشيك وحاعاودا حد اللي قاعد دورشة أد لو قاعد لاي waxaan rabaa inaan su-aashayda aan u daayo banalka oo ah hadda doorasho hadda lagu heshiiyey tusaale ahaan ay madaxda maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen iyo madaxda qarankaba ay ku heshiiyeen yacni 2026 markii la gaaro doorasho caynkee ah ay Soomaaliya noqon doontaa ama ay geli doontaa inagoo fiirin doona markaas idinkoo markaa ka fiirin doona hadda sida xaaladda amni ee waddanku ay tahay ama sida bulshada Soomaaliyeed ay tahay marka la fiiriyo doorasho noocee bay turgeli doontaa sidoo kale waxaan rabaa inaan xalimiyari oo ah maamada doorashada inaan weydiiyana hal su-aal oo ah waxay tihi nidaamka close list baa lagu soo bixi doonaa waxaan rabaa in sharaxaad kooban ka bixiso bal close listigaas sidee buu noqon doonaa oo axsaabta ku salaysan sidee buu u ekaan doonaa deegaan doorashada markii tusaale ahaan la tago oo kale ma sidee sida hore wax loo soo xuli jiray buu noqon doonaa oo qabiilka ku salaysan mise wax kootooyin kale oo la xiri doona ayuu noqon doonaa labada su-aal baan qabaa thank you ninkaa geeska sii بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ومحمد عبد الله جوني وحن قبالة سؤال وأن روينا كلا ويديو قدومي برهان يو مام دونيو سؤال شغور سوحا ويدينا يا قدومي برهان مدن قدومي سيدا الله سبحانه وضان كينا تضواتن بقول كيف إن كبدن ودلنير على الدها سياسة الصومالي ندور وين دلنير هذا كم اللهن وحياوها كور تاجن إن كقيب قاتان وحاكم هذا الدستور كملجار كوهذا أجعنت كويسان ديفيستيسا sababtoo ah da-da xilqabashada wasiirka koowaad iyo wasiirka labaad oo kale waa 40 sano sidoo kale wasiiradan waxaan u maleynayaa inay 30 sano tahay marka ma ku fikireysaan ama ma qorsheynaysaan in da-da xilqabashada wasiirka koowaad iyo wasiirka labaad iyo wasiirada inaad hoos u dhigtaan si dhalinyarada Soomaaliyeed ay door ugu yeeshaan ama saameyn ugu yeeshaan siyaasadda su-aasha labaad oo aan weydiinayo maamul duniya iyadana waxay tahay
sida ku xusan reportka ee tiimkan soo sameyn SBA waxyaabaha keenayo in bulshadeena ayna ka qayb qaadashadooda siyaasadda ay liidato waxaa ka mid ah ururadeena bulshada rayidka ah oo daciif ah oo aan tayo wanaagsan lahayn haddaba muxuu yahay qorshihiina ku aadan sidii lagu tayan lahaa ururada si ay qayb ugu qaataan ama nimankan siyaasiyiinta ah ay arrinkan maxaa ku dhahaa sidii door bulshada dhan ugu qayb qaadan lahayd u samayn lahayd waa mahadsantihiin aad waa mahadsantahay maxamed ninkaasan siinaya ninkaas dhexe بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa cabdiqani seed waan u mahadcelinayaa Somali Public Agenda iyo casuumaadda ay nagu casuuntay kulankan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa panelistayaasha halkan fadhiya runtii mowduuca waa mowduuc aad muhiim u ah oo ah in la kordhiyo ka qaybgalka siyaasadda ee Soomaalida expanding political participation waxaan rabaa wax yar oo background inaan mataqaanaa aan dul maro sida warbixinta lagu sheegay laba mowduuc ay aad diiradda u saartay oo ah dowlad dhiska Soomaaliya electionka iyo constitutionka sidii looga qaybgeli lahaa sida la socotaan Soomaaliya hadda uguma horeyso inay dastuur yeelato saddex dastuur iyo laba axdi qarameed iyo hal dastuur oo ku meel gaaray Soomaaliya yeelatay since 1960 markii la ankumay dowladnimada Soomaaliya markii aan qaranjabku nagu dhacana waxaa bilaabatay in mataqaanaa waxaa la yiri rag cadaalad way sida cawsha kale yaa in la kala tago kadib markii la isku laabtana in wax la yabyabo oo maaragtay charter la sameeyo charterkii Imbagati wuxuu farayay in federal la qaato in dalka inuu federal qaato participationkiisuna aad u yaraa hadda dadka Soomaaliyeed markaa weydiiso federaalka yaa noo qaaday ma garanayaan qof u qaaday taasna waa participationka oo yar waxaan rabaa horta participationka waa constitutional right oo articleka 22aad ee dastuurka sheegaya in qof kasta oo muwaadin ah uu ka qayb galo dastuurka in uu ka qayb galo mataqaanaa siyaasadda inuu wax doorto iyo in la doorto sida daraadeed marka Soomaaliya sababta u yaraatay maxay tahay in dadku ay ka qayb galaan challenges fara badan baa jira kow waxaa ka mid ah insufficient resources ama ma haysan wax dhaqaale ugu filan markii participation la yiraahdo qofka laga qayb galiyo waxaa laga yaabaa in la gaari waayo meelo badan waxaan kamid ahay dadkii ka shaqeeya dastuurka dadka ka shaqeeyaan kamid ahay markii la rabo in lagala tashto dadka waxaa laga yaabaa magaalooyinka kaliya in la geeyo ii sheeg mataqaanaa la tashiyada oo aan la gaarin meelaha kale ee dadku ay joogaan ayagoona ay tahay inay xaq u leeyihiin laakiin waxaa la rabaa haddii ay dowladdu gaari weyso civil society inay mataqaanaa ayaguna doorkooda ciyaaraan oo ay ayagu participationka ay sii ballaariyaan maxaa yeelay dowladdu waxaa laga yaabaa inay gaari weyso meelo fara badan sidoo kale waxaa ka mid ah insecurity waxaa laga yaabaa dowladdu inay gaari weyso maaragtay meelaha qaar oo amni darro ay jirto isla markaana dadku participationkoodu uu yaraado sidoo kale waxaa ka mid ah lack of interest inaysan dadku xiiseynin mararka qaar inay ka qayb galaan mataqaanaa siyaasaddii ama ay leeyihiin siyaasadda waa wax qariban waa inaan galnana maaragtay annaga kuma lihin ii sheeg sidoo kale dhanka kale ee maaragtay caqabada weyn ay jirto waxa waaye waxa jira wax la yiraahdo elite politics ama siyaasadda mataqaanaa dadka no soo koob elite waa dhammaan rabaa maxaa yeelay waxa isku koobay dad elite ayaa isku koobay dadkii la rabay inay mataqaanaa challenge sameeyaan waa bulshada rayidka waaye oo dadkii matala marka Somali elite politics kaas in la yareeyo aad ayay muhiim u tahay laakiin hadda waxaa jira waxaad moodaa maadaama Soomaaliya ay haddeertan ay shaqeynayso oo dhowr dowlad dhiskii saddexaad aan ku jirno 2012 qaybta dastuurka markaan diiradda saaro 2012 ilaa hadda waa 10 sano waliba waxaa ku socda dastuurka dib u eegis ku socota fursado hore u jiray oo aan hadda jirin baa jira waxa laga yaabaa inuu hadda jiro political will inuu jiro baa laga yaabaa marka waxaan rabaa gabadii in mataqaanaa si loo kordhiyo participationka kow horta waa in one person one vote kamid sheeg la qabtaa maxaa yeelay participation wuxuu ka bilowdaa qofka ku matalaya in adigu doorato oo aad la xisaabtanto dadka Soomaaliyeed qodobada dul istaag okay kow dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan in ay right u leeyihiin xaq u leeyihiin inay participation ka qayb galaan in la sameeyo wax la yiraahdo political parties oo ay kow ka soo bilaabato ka qayb galka meeshu ka soo bilaawdo ay tahay political parties okay in la doorto local councilski iyo dadkii hoose marka inkastoo waqtigu yar yahay waa intaasaan kusoo gabagabaynayaa uma sinni salaam alaykum aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan siinayaa intaan xagga aadin hal mar hore ninkan odaga hore ninka dhalinyarada oo u laabanaya ninkaas noo soo koob waqti ma haysan waxaan rabnaa inaan isgaarsiino waqtiga inaan beeqaamino please su-aal ama ra'yi waxaa qabto بسم الله magacaygu waa Cabdi Absuudi Nageeye waxaan ka tirsanahay Somali Social Platform
waxaan rabaa inaan weydiiyo horta marka hore waxaa mahad celinaa Somali Public Agenda iyo Somali Dialogue Platform oo barnaamijkan soo qaban qaabiyay cilmi baaris inta ku qorno akhriyan oo wax qurux badan waaye waxaan rabaa gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib-u-eegista dastuurka inaan su-aal weydiiyo inta badan sida aad hadda sheegtay waxaan rajeynaysiin marka barnaamijyadan aad qabanaysiin ama heshiisyada la galo oo dastuurka inaad bulshada qayb ka gelisiin markii barnaamijyo ay dowladda qabanayso ama la rabo in go-aanada la gaari rabo bulshada loo soo bandhigay inta badan waxaa dhacdo dad iyo camir la dhaayo hoolka in la keeno barnaamij la qabto bulshada ka qayb gasha la dhaho su-aalo la weydiiyo si saxan aan looga jawaabin kadibna wax idin qorno war-saxaafadeeda dadka lagu kor aqriyo adinka ma ahan laakiin si guud waxaa jiro war-saxaafadeed qoran oo 5 maalin ka hor inta uusan kulanka dhicin qornay bulshada meeshaas joogta in lagu kor aqriyo sidaasna uga qayb qaateen la marka maadaama waxaan dadkan wax saameyn ku yeelana ay yihiin sidee maxaa la yiraahdaa isdhihi kartaa ama ay kula tahay dad lagu kalsoon yahay go-aan kale leh go-aanka ay keenaan oo bulshada ka socdo bulsho go-aan leh sidee aad rabtiin in aad maxaa la yiraahdaa qaab noocee kusoo xula doontiin bulshada barnaamijyadiina aad ka qayb gelinaysiin waxa aad wadiina in ay ka qaybgal sax ay yihiin bulshadu si uu kalsoonaan kartaa ma sida hore barnaamijyada la soo abaabul hoorka 200 qofood ama 100 qofood la isku keeno way ka qayb qaataan dhigi jiray mas wax ka duwanahay waxaan siinayaa بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحسن عبدي حسن waxaan rabaa faalle yar oo 20 second kaliya inaan kusoo koobo aniga waxaan rabaa marwa dunya meesha ku ekeysay in aan wax yar ku daro oo ah ka qaybgalka oo bulshada meelaha ugu waaweyn waxa waaye aan isleeyahay waxa maqan isla xisaabtankiya maqan isla xisaabtanka ugu weyn oo nidaamyada siyaasadeed ee casriga ah wuxuu ka bilowdaa wax la yiraahdo electoral accountability marka qofka oo bulshada ka tirsan haddii uusan dareemaynin in ka qaybgalkiisa aysan wax macnaha aysan soo kordhinaynin waxaa laga yaabaa inuu dib u gurasho sameeyo sidaas daraadeed marka annaga arrinta hadda aan maanta ka hadlayno arrin systemka dowladnimadeena oo dhan saameysa waaye oo bilowgeedan uu yahay xiriirka ka dhexeeya state iyo society يعني labadaas meeshay si isula falgalaana wuxuu ka soo baxaa nidaamka dawladda aan rabno marka hadda waxa laga yaabaa in qofka Soomaaliga ah marka uu dawladda la falgalayo miisaanka oo bulshada rayidka ay leedahay iyo miisaanka oo loyalties-ka kale isaga uu leeyahay in kan bulshada rayidka uu yar yahay marka ilaa marka miisaanka bulshada rayidka xoog loogu soo qaado waxaan isleeyahay in wali ay maxaa la yiraahdaa gabaabsi ahaan doonto aad u mahadsantihiin waa mahadsan tahay gabadhaasan siinaya بسم الله الحمد لله magacaygu waa Fadli Maxamuud waxaan ka tirsanahay family Muqdisho University laba comment baan ku darsanayaa Somali Public Agenda iyo jamhuurkuna way mahadsan yihiin commentiga koowaad dad iga horeeyay way ka dhawaajiyeen in civil education-ka lagu daro nidaamka waxbarashada manaahijteena waxbarashada Soomaaliya buur weeye runtii waxaan aaminsanahay waxyaabo badan inay ka maqan yihiin waxaana ugu muhiimsan civil education-ka iyo in loogu daro inkastay khaarijul mawduuc tahay in lagu daro dugsiyada sare ama jaamacadaha wax ku saabsan dawlad ta'hiiliya lil xayaat sawjiya oo dhalinyarada commentiga labaadna waxa weeye marar badanna waa maqlaa dhalinyarada inay ka qayb galaan siyaasadda dadka waaweyn looma ogola iyo jaanisna lama siiyo oo dhalinyarada ku cudur daaranaya ku cabanayaan maqlaa marka waxaan aaminsanahay siyaasaddu inay tahay kifaax loolan iyo dagaal xoog iyo xoolo waxay hayaanba inay ku bixiyaan wayna sugin in dadkii ka waaweynaa dhahaan waa duqownay ama idinkaa naga firfircoona kaalaya dhalinyarada waxaan ku boorinayaa inay dad badan oo waaweyn oo xilal haya sida looga baqayo inaynan ahayn oo iyagu ka aqoon badan yihiin oo ka firfircoon badan yihiin jaaniskana waxay ku heli karaan bilkifaax inay dadaalaan oo halgamaan waa mahadsantihiin aad u mahadsan tahay insha allah magacaygu waa cali maxamed cali ka socda jaamacadda ummadda soomaaliyeed laba comment iyo one question weydii doono maam xalimeeri ay noqon doontaa insha allah the first comment waxaa waaye public participation si guud waxaa waaye asaga horena loo sheegay waa the engagement of individualska structureska iyo institutions of democracy ka dhex dhacayo si guud public participationka
commentiga labaad oo aan ku darayo waxaa waaye kii dhowaan walaasha iga horeysay ka dhawaajisay oo yacni civic educationka in micno loo yeelo la baro ilmaha marka ay yihiin icdaadiga ibtidaa'iga iyo thanawiga si guud ayadoo waxaa waaye aan la kala saarin tusaale problemka oo ka dhacay dalka oo maam xaliim ay ka dhawaajisay waqtigoodin lagu baray ayaga civic educationka yacni ayagoo waxbarashadii dugsiga hoose dhexe iyo sare ku jiro the first time oo jaamacad ummadda aan ku biiri yani 6 bilood oo foundation wax la yiraahdaa jiro meeshaas waxaan ugu barayay wax la yiraahdo civic education the question waa ugu gudbayo oo maamulada mari ala galhay waxay noqon doontaa duu ilaahay yiraahdo marka laga hadlo public participationka dhawaan ayaa ka dhawaajisay waxyaabaha oo si guud ururada iyo maxaan ku yiraahdaa organizationska banaynayaan inay sameeyaan yacni horumar oo dhanka bulshada ah waxyaabaha xadidaya waxaa ka mid ah yacni vacuumka oo politicska ama vacuumka oo waxyaabaha khuseeyo arrimaha isheeg iraade bulshada rayidka oo kale oo inta badan su-aasha ma baari kartaa please waqtigaana haya yes sidee yacni macquul ay ku noqon kartaa in ururadii bulshada rayidka oo aan la kala qaadin ama organizationski oo danaynayaan inay sameeyaan horumar dhanka waxbarashada ama wacyigelin dhanka oo maxaan ku yirahdaa bulshada ah sidee kaga qayb qaadan karaan baydawey haddana waxaa jirto politics si guud ayaga wax oo maxaan ku yirahdaa bulshada ama qofka danaynayo lagu invite garaynayo ma ahan politics waxaa waaye wax hardan ah qof walba oo danaynayo inuu ku biiro siyaasadda asagaa laga rabaa inuu aad maasan tahay waqtigoona ay awgeyd su-aalihii la weydiiyey waxaa ugu horeysay su-aal ah doorasho ceynkee ah ayaa mustaqbalka dhici karta 2026 suuragal ah iyo close listiga waxaa la weydiiyey marwa xlimiyari marwa noo soo koob waqtigana aada noo haya labada su-aal bismillaahi doorashada mustaqbalka inay ka dhacayso iyo isnoocay u dhacayso waxaa waa go-aan ay u taalo madax lasoo saari doono oo shuruucda lagu soo qori doono shuruucdaasoo baarlamaankuna uu soo ansixin doono markaa lagu dhaqmi doono marka hadda noocaasay noqonee aniga idinma dhihi karo laakiin saasay u eg tahay closely single constituency oo proportional representation ah ay odayaasheena markay isu yimaadeen ay qaateen micnaheedu waxaa waaye matalaada isu dheelitiran waa proportional representation oo micnuhu waxaa waaye xisbiyadii markaas doorashada loo ogolaado wadagala doorashada qof kastana xisbi kastana intii xibin ama musharax uu ku guuleystay uu helayaa loo qaadaa waxaa la musharaxiintana waa 275 ay ku wada tartamayaan xisbiyadaasayto hadda waxaa leeyahay 2 xisbi waaye 2 xisbi iyo tan say isu keenaysana ayadana waxay u baahan tahay daraasad iyo in la isqabadsiiyo ee u baahan tahay matalaada isu dheelitiranna saasay micnaheeda tahay waxaana go-aan lagu gaaray hal degaan doorasho waxa waaye soomaaliya oo dhan hal doorasho ah 275 kursi markaan soo qaato aqalka baarlamaanka golaha shacabka 275 degmo kasta iyo tuulo kasta oo soomaali ay degan tahaa la dhigayaa dadkaas soomaaliyeedaan soo dooranayo waaye ma ahan qabiil qolo kasta meesheeda loo dhigaa ma ahan waa 275 seejo kasta oo wax laga dooranayo meelaha wax lagu doorto waxa waa goob doorasho iyo xarun doorasho micnaheedu hadda adinka si goob doorasho waxaa la dhihi karaa hal iskool xarun doorasho waxaa la dhihi karaa hal iskool goob doorashona iskoolka qolalka uu ka kooban yahay goobo doorasho ah meel kasta oo saas oo Soomaaliya laga sameeyaa 275 magacyadooda la dhigaa hadday 10 xisbi ku tartamayso hadday 2 xisbi ku tartamayso meeshaas xisbigu wuxuu ka soo helo uu leeyahay close list haddana la yiri liiska xirana la yiri haddana xisbigu wuxuu keensanayaa 275 soo qoranaa 275 ama wax ka yarna wuxuu u soo qoranayaa reserve ama maxaa Soomaali muxuu ahaa kayda u soo qoranaa
kee haddii qof ka baxo qofki hadduu ka baxo lasoo doortay muddo kadib uu ka baxo qofkii geli lahaa markaasuu soo dhiganayaa liiskiisa. Su-aasha waxay tahay marka liiskan xiran see loo kala hormaraa, yaa kala hormarsiinayo 275 xisbiga siduu u kala hor yuu number 1 ka dhigana yuu number 2 ka dhigana ayadana waa arrin kale oo taala. Marka doorashada ee noo soo socoto haddii lagu heshiiyo sidaasay u qoran tahay. dhalinyaradaas oo noqota ka qaybgalkeeda, dhalinyarada siyaasadda inay ka qayb qaadaan waa qasab. wadanka ayaga iskale ayaga ku dambeena, anaga waa baxeynaa ayaga imaanaya oo iskale. si uga qayb qaadana ugama qayb qaadanaysa marka maanta adoo jaamacad iska dhigto berri markaa jaamacadda kasoo baxda inaad dhahdo siyaasadda aan ka qayb qaadanaa. tadawuray u baahan tahay, isdiyaarinay u baahan tahay. ma jecli inaan markasta tusaale usoo qaato wadamadan hore u maray, laakiin markaad tagtid baarlamaanka markaad tagtid ama senator aa u dacwoonaysa ama xafiiskiisa waxaa ka shaqeeya oo la qaatay oo soo galay dhalinyarada ugu darajooyinka waaweynaa, dhalinyarada ugu tafsanaa aa la shaqeynaya. senatorkan waxa uu baarlamaanka geynaya iyo wuxuu ku hadlaya dhalinyaradaasaa soo diyaarisa, meeshaasay kusoo dhismaan. tan kale waxay qabaan iskoollo u gaar ahba, iskoollo gaar ahaba la geeyo. marka dhalinyarada markaa jaamacadda kasoo baxdiin halgan sameeya, tartan sameeya, waxbarasho sameeya, xildhibaanada la shaqeeya, toosiya markay qaldan yihiin inaa adinka toosisiin waaye. jaranjarada saasaa ugu soo gudbaysa. maxamed duniya ururada bulshada rayidka su-aal ku saabsan noo soo koob fadlan. horta ururada bulshada rayidka waxa waaye soomaalida horta in mahadsanida la baro waaye. sababtoo iskoolaadka iyo jaamacadaha ay sheegaysiin haddayna bulshada rayidka jirin ma soo jirteen. wax walbana markay kor gaaraan way soo antarooraan. marka annagoo shaki kuma jiro markii dowladnimadii lasoo dhisaayey annagana inaan gadaal isu dhignay, bal dowladaa la helee gadaal u deganir. dastuurkaa hadda la sheegayay 2006 ayadoo la leeyahay ninkii tago kitaabkii ilaahay uu gooyey hal qoorta laga gooyay ayaa annaga Jabuuti iyo meel walba Xaliimo hal ururan ka wada tirsanaan jirnay. marka la dhihi jiray qofkii galo qoorta laga gooyo. waxaa jirtay mar nagu soo ridi jiray airportkan Murcadde ahaa oo hoobiyaal nagu soo rido oon tagaynay. dad diidaya dastuurka inay ku dhaarteen oo Ethiopian ma horta siyaasiyiinta arkaysiin dhib badan laga soo maray. annaga marka waxaan leenahay mar kasta oo dhiida gaarto waxaad noo arki weysantihiin waxa waay waxaan leenahay inta yara la haystay dumin. waad ogtihiin bari dheed wixii dhacay 2002gii dhibaatadii dhacday iyo in la isfarasaar lahaa gadaal loo noqon lahaa. marka annaga Dhuusamareeb 1 iyo 2 dadkii tagay miisku qaraacayna dadkii madaxweynihii markaas jiray markuu sheegay habeenkii anigu ahaa qofkii idaacadda ka hadlayay galaashaydan waxaa jooga bulshada rayidka oo lahaa ma aan dhihin madaxweynaha waa beentii. habeen dhaweyd su-aalaha ogeydaan weydiinayna annaga horta ma fadhino laakiin waa badannahay bulshada rayidka. waxaa dalladahaad aragteen oo waxbarashada wado bulshada rayidka qaybo badan ay leedahay. humanitarian aan ku jeednaa laakiin markaan aragno inay haadaan ka dhacayso waa u midownaa. inaan daciifnay been ma ahan oo sidaan beri ahaan jirnay ma nihin. laakiin hadda mar walba markaas waxayna waa soo kabanaa waa soo kacnaa. hadda as a national aan hadda u shaqeynaa oo waa soo kabanaynaa. symposium aan leenahay oo ka kooban 17 waxaa waa Puntland 3 qof waaye, gobolka Banaadir 5 qof waaye, yacni as a national ah. annaga marka inay wixii isla dunta ma rabno, wax aydin ogeyn ayaan mar walba qabanaa. laakiin waxa dadkii kale inaan soo waxayno baarlamaanku maalin dhaweeyta markay dhaheen oo Mahdi loo magacaabay Mahdi oo shalayto aad ogeydeen markii 2 sano oo dawladdiisii ay ku darsantay oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka ka ahaa ayaa wuxuu noola soo hor fadhiistay in ay ku darsadaan extension. marka wax aydin ogeyna annaga ognahay waxaan wadankan rajo badan aan ka qabnaa. laakiin waxa dadkii wax bedeli lahaa bulshada rayidka kaligeed afartan qaaqle idaacadaha ka hadlo dunya carshaan oo kale ee ma aha. bulshada rayid horta dadka inay bartaan waayo waa adiga ka mid ah laakiin aniga waxaan ahay tii abaabulneed. laakiin hadda adiga tir ii ahayn aniga waxba ma ihin.
waxaa kaaga soo walaalkayna su-aashii aan weydiin lahaa waa lasoo gaabay maqribkii aan nahaayo 10 jeer cabdiqani wuxuu sheegaya waa arkayseen cabdiqani 10 meeqa shir ayaa meeqaan waxayna constitution oo la bedelay waa la iska tuuraa mid walba tay imaatay ku darsataa marka waxa waaye ninka markuu baxo fiiri u fiirso guddi baarlamaan maalin walba wuu baxayaa lama dhahayo guddigaana wax ogaa maryan cariif 10 iyo gruubkeedii 5 sano ka hor waxay soo bandhigeen 10 inay ka gudbeen qodob waa la bedelay kow haddana waa lasoo bilaabay 10kii ah kow laga soo bilaabay marka waxaan mashruuc u wahay anaga hadalna waay ma ahan wax anaga keliya nagu kooban waa burhaan wuu fadhiyaa wuu og yahay marka waxaa waa meesha sarta ka qurantay burhaan waa fiican yahay hadduu tii hore joogay maalin walba mid cusubaa la keenaa asna buuggii hore wuu laaba baarlamaanka inuu mudday ka dhahay waa la xaday waa ogtihiin marka gudoomiye ibraahim soo dhawow laba su-aal oo lagu weydiiyey midna waa da-da wasiirka midna waxay ku saabsanayd qaybgelinta taasaan ka bilaabayaaba horta da-du waa mahadsan yahay da-du horta ka qaybgalka dastuurka hadda ku taalla horta qaangaarka waxa ku taalla 18 sano inuu qofka Soomaaliga qaangaarkiisu uu yahay 18 jir ka qaybgalka siyaasadda xilalka la qabanayo marka xilalka la qabanayo hadduu golaha shacabka yahay iyo hadduu xildhibaan aqalka sare yahay senator yahay labadaba waa 25 sano buu sheegaya 25 sano wax weyn da weyn oo mataqaana ama 40 sano jir soo jeedinta u dambeysay hadda oo hore aqalka sare iyo golaha shacabka la kala saaro oo 35 laga dhigo aqalka sare 25 golaha shacabka loo dejiyo oo xoogaa da'daasi experience-ga iyo khibraddaas la kala soo jeedin weeyaan laakiin hadda dastuurkan qodobadiisa noogu taalo 58 baan filayaa inuu ahaa wuxuu sheegayaa in 25 xildhibaanka labada aqalba inuu shuruudaha asaasiga ay ka mid tahay golaha wasiirada fulinta wasiiradu waxa weeye 30 sano inay yihiin ra-iisul wasaaraha baa wuxuu yahay 40 sano isaguna qodobka 98 baan sheegay iyo madaxweynaha waa 40 sano marka dabcan xumalada ya waa isku mid ah ra-iisul wasaaraha waa isla socda marka waxa ku tusinaysaa 40 kaliya waxa ahba ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii inta kale uu 25 MPs marka su-aasha laakiin saan jawaabteedii u soo gaabiyo gudoomiye Xaliimo Yare baa si fiican u sharaxday runtii waxay u baahan tahay meelaha aan gaabiska ka jirno weeyaan 3 marxalad la maraa markii ardayda la yahayna waa inay mataqaana ururadii jaamacadaha iyo arrimahaas horta si looga soo shaqeeyaa sidoo kale markii qofku jaamacad soo dhameeyana ururadii shaqaalada ee trade unionkii waa inuu soo galaayo active ka noqdaa halkaa markuu soo baxana siyaasadda rabana waa inuu soo galaa sidoo kale xisbiyada siyaasadeed xisbiyada uu ka soo bilaabo haddii kale waqtiga xisbigii waa dowlad ah oo institution ah oo ka soo bilaabmaya degmo kasoo bilaabanaya mataqaana haweenka qaybta dhalinyarada doorasho soo galaya halkaas soo maraya oo ilaa golo dhexe uu soo galo golo ful soo galo marka runtii waxaan isleeyahay meelaha gaabis ka jiro da-da xaggeeda ma aha laakiin waxay weeyaan isaan dareensanahay institutionadii kale oo la rabay qofka inay dhisaan dabcan haddii aan anigu xildhibaan baahan jiray xildhibaano badan hadda soo galan dhalinyaro ah oo baarlamaankeena hadda dhalinyaro aada u badan yihiin da-da ka yar waxaan baleeyahay waagii horena sidoo kale 2016 iyo 2022 dhalinyarada ugu badan baa soo gashay oo qaarkood macaan aan filayo in 25 ay jiraanba haddaysan wax kale jirin marka haddaysan ka jirin laakiin waxaan soo wadaa marka dhalinyaro la-aan oo golayaasheena ma hayso laakiin waxaa maqan xildhibaanku markuu halkaa tegayo khibradii loo baahnaa ma lahaanayaa xeerarkii loo baahnaa ma dejin karaa xisaabtankii loo baahanya ma dejin karaa ayagoo khubaro ah oo mataqaanaa jaamacado badan ka baxay marka waxaan isleeyahay laakiin way u baahan tahay in mataqaanaa dhalinyarada anagu badan baa waxayna la soo wadaageen cilmi baarisyo oo runtii youth associationskii waagii hore aan ka shaqeynay oo la soo wadaageen talooyin bay noo soo jeediyeen oo xagga da-da iyo arrimahaasna waana tixgelinay weli maantada waxaan ka doodaynay da-da codeynta qofka dastuurkaa la gelinayaa maantada maan ka shaqeynayna da-da waxaa la gelinayaa 18 baa laga dhigaa dastuurkaa la gelinayaa mise xeerkaa la gelinayaa options daraasad dheeraadana waa laga sameynayay marka laftigeedu waxay ku jirtaa waxyaalaha mataqaana ka qaybgalka da-da waxbay xandhibtaa waa sax
laakiin waxaan u baahannahay dhinaca kale laftigeeda inaan eegno su-aasha labaad oo runtii ugu muhiimsan anigu aniga aada ii saameynaysa oo ay ka hadashay maamo duniyo ay ka hadashay horta baarlamaankii tobnaad baan ku jiray guddiga OC baan ku jiray oo baarlamaanka dastuurka qaabilsan maryan carif waa kala soo wareegnay xulashooyin bay soo sameeyeen ayadii aan kubis kareen annagiina waa sii wareejinay baarlamaankii ku xigay oo hadda jira baa lagu wareejiyey ikrikna oo guddigii farsamada ahaana wuxuu la soo shaqeeyey maryan carifna la soo shaqeeyey annagana waa la soo shaqeeyey haddana anaaba joogaba oo xagga jooga shaqadii farsamo oo loogu talagay talooyinka laga qaaday kulli waa la gashay halkaa horta laakiin maxaan dhibnaa arrimihii siyaasadda dastuurkan wuxuu waxaan dhibnaa oo haddana aan rabaa inaan sifac ugu noqdo siyaasaddii dastuurkan oo dhan wuxuu waxaan dhibnaa qodobada la leeyahay odayaashaas dowladda dhexe dowlad goboleedka ka soo heshiiyeen baa doorasho waxaan dhibneed wax kasta waxaan dhibneed dowladnimadii oo dhan physical federalismkii khilaafaadka hadda jira iyo xasiloon la-aanida jirta oo dhan ka qaybgalka marka talooyinka waa la qaatay waana hadda ku bees garan kan hadda baarlamaanka la geyn doonana waa asagii lafti kii maryan carif soo bilowday wayaan beeda wey ay soo bilowday laakiin siyaasaddii baa la gelinayaa qodobada hadda waa xajoodsan sidee uga qayb qaadan karnaa oo su-aasha ugu muhiimsan runtii annagu waxaan isku dayeynaa in wixii mashruucsan noqon dadka ka qayb qaadanaya dadkii loo baahnaa inay yihiin exactly waa arrintan rabo in wixii mashruuc noqon oo maalin haddii meel lagu qadeeyo aysan saa lagu kala tegin laakiin sida ugu fudud uguna habboon dadka ugu habboonna ay yihiin in mataqaanaa runtii dhaleecooyin badan baa jiray laba dhinacba dhaleecadu waa ka timid public participation ma helin baa la hadda research ay sameeyeen stuudiyada soomaalidu cilmibaarisyo soo baxay waxay yidhahdeen public participation ugu badnaana waa sameynay waxaan tagnay degmooyinkaan tagnay dowlad goboleedaan tagnay bulshada qeybaheeda kale aan kala duunay laakiin kuma filnay leeyahay taas waa qodob dhinaca kale ka qaybgalka laftigiisa waxtar ma leh oo tayadii loo baahnaa ma leh baa dhinaca kale anagu aan dareemayna lafti annaga waxaan dareemaynaa wixii loo baahnaa oo aan dadka ka filaynay kama helin waxbaa lasoo dhigayaa wixii baa laisku dayaya shir baa laisku imaanayaa sidii loo baahnaa ama taladii loo baahnaa oo saxda ahayd sida lagu helila laakiin saa anagu ka duulayno khibradda horan aan ka duulayno labada dhinacba dadka ugu badanna inaan gaarno waan rabnaa dadka ku habboonna inaan gaarno qalabka la adeegsanaya marka waxaan isku dayaynaa sida ugu fudud oo qofka soomaaliga wixiina u fahmi karo hadda waxaa muhiima oo kale hadda aada u soo baxaysa horta qofku inuu fahmo qodobka laga hadlayo wuxuu yahay da-adoo kale hadda markaad sheegtid aad tiraahdo war 18 waxa laga wadaa 15 waxa laga wadaa waa sidan waxaan baa ciqaabtaasa imaanaysa waajibaadkaasa ku fuulaya waxaasa ku fuulaya 18 haddii la yidhaahdana sidaas isku bedelaya doorashadaada waxay ku xirnaanaysaa sidan iyo sidan marka qofku horta wacyigelin yar oo qodobka sharaxaadana waa in la helaa qofka talada ku habboonna inuu bixiyo waxaa xusid mudan marka oo muhiim ah oo runtii daraasada maanta ay tilmaamayso kalsoonida dhallinyaradeennan iyo dadka soomaalida oo dhanba waxaa loo baahan yahay laftigeedu inay qayb ka noqdaan waxaa xusid mudan problem hadda jiro oo laga hadlayo oo dhan doorasho maaha doorashada waxaa ka miisan dastuurka hadduu saxmo oo wixii loo baahanaa doorashada waa la bedeli karaayo dastuurka maanta la sameynayo oo loo laakiin hadda loo baahan yahay saxda as leeyahay qaybgalka qof kasta oo agaasiyo ma soo inay dastuurka noogu dhigan tahay oo la yidhaahdaa doorasho saas ahaan gelaynaa waqtigaas aanan gelaynaa maalintaas aanan gelaynaa inay dastuurta ku qoran tahay oo aan laakiin dastuurkaana 825 ansixisayaa la yidhaha gadaal haddaa ugu noqon 825 maxay ahaayeen ansixiyey dastuurka waxyaabo badanaa soo baxaay marka doorasho waa in dastuurka inay ku qoran tahay maalinta doorashada la gelaayo oo la bedeli karin waana inay ku qoran tahay nooca doorashada la gelaayo oo la bedeli karin laakiin qof inuu iska seexdo uu yimaado maanta kanaan sameynaa berri kan aysan marka dastuurka aan ka sugayna waxaan ku darayaa gudoomiye xaliimo runtii doorashada waqti badan bay gelisay khibrad badan iyo waqti badan iyo isku day badan baa la sameeyey waxyaalaha xanidaya waxaa ka mid ah dastuurka qodob yar oo 47 ah oo waxban ka hadleen baa meeshan ku yaala dastuurkeena oo doorasho la leeyahay xeer baa laga soo saaray xeerkii baa wuxuu noqday misna ilo meelay saacadii gala marka wuxuu u baahan tahay sheegaysid
in cutubka afaraad oo matalaada shacabka ah oo xisbiyadii ah waxaasoo dhan in si fiican uga si aysan u imaan qof kastoo yimaada dastuurka inuu raacayo ku khasbanaanayso keliya loo baahan yahay habraacyadii iyo xeerarkii iyo wixii loo baahnay oo kale uu sii jiidanaya aad baa umahadsantahay aad u mahadsantihiin mar sharafta qiimaha leh ee kasoo qayb gashay madashan madasha waa noo xiran tahay halkaas waxaa yaala refreshment iyo networking aan samayn karnaa kulley salaada markii la gaarana hoosaan u degan karnaa soo dhawaada markii loo mahadsantihiin